muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago maamulka madaxweyne Trump oo hadda ka dhaadhicinaya maxkamadaha immigrationka in ay diidaan kiisaska magangalyo doonka kiisas gaaraya ilaa iyo 8,000 oo kiis isla markaana dadkaasi loo masaafuriyo wadan saddexaad oo aan ahayn wadankii ay ka yimaadeen. wadamo waxaa jira ogolaaday in dadka aan wadankooda u dhalan loo soo masaafuriyo. wadamadaasi maxay yihiin? wadamo Afrikaanana ma ku jiraan? waan idinla wadaagaya. sidoo kalena ciidamada ICE ee howlgalka ka wada gobolka Minnesota oo la ogaaday in waxyaabo sharci darro ah ay sameynayaan, taasi oo gobolku uu ka dacwooday waraaqna uu u diray wasiirka amniga gudaha oo ciidamada ICE ay hoos yimaadaan. green cardka dadkii interviewada loogu wacayay hadda waxay noqotay meel la isku gaado oo dadkii waa la qabanaya markay interviewga tagaan waana la xirayaa. arrimahaasi ayaan rabaa inaan idila socodsiiyo iyo sidoo kalena dadka Afghanistan u dhashay oo hadda waraaqo loo soo diro wasaaradda amniga gudaha ay u soo dirtay si ICE ay u yimaadaan riboodkii ama check-inkii la sameyn jiray. waxaana loo soo diray maalmaha Christmaska iyo sanadka cusub, xilligaasi oo maxkamada aysan shaqaynaynin, lawyerna aadan la xiriiri karin. arrimahaasina waan idinla wadaagaya, balse marka hore maamulka madaxweyne Trump waxa uu isku dayayaa wax kasta uu ku dadajin karo masaafurinta ballaaran oo Trump intii ololaha doorashada uu ku jiray uu ballan qaaday. hadda waxaa la ogaaday maamulka madaxweyne Trump inay doonayaan inay kansalaan kiisaska magangalyo doonka dadka dalbaday magangelyada oo kumanaan gaaraya. isla markaana kiisaskaasi marka la kansalo, dadka laga kansalay waxaa loo masaafurinayaa wadan saddexaad oo aan ahayn wadankii markoodii hore asal ahaan ay ka yimaadeen oo ay u dhasheen. waxaana muuqanaysa in ololahan guud ahaan inta badan gobolada Mareykanka uu ka socdo, walow hadda ay jiraan gobollo si gaar ah loo carabaabay. waxaana dadka kiisaskooda magangalyo doonka uu active-ka yahay laga codsanayaa maxkamadaha immigrationka inay gebi ahaanba tuuraan kiisaskaasi oo waxba kama jiraan ay kasoo qaadaan, dadkaasina loo masaafuriyo wadan aan ahayn wadankooda. ciidamada ICE ayaa waxay codsiyo u direen maxkamadaha immigrationka si gebi ahaanba kiisaskaasi meesha looga saaro. xog la helay oo dowladda laga helay ayaa sidaasi muujinaysa. marka waxay gaarayaan kiisaska ay dowladdu doonayso magangalyo doonka in gebi ahaanba la baabi'iyo, dadkaasina loo masaafuriyo wadan aan ahayn wadankii ay ka yimaadeen. waxa ay gaarayaan ilaa iyo 8,000 oo kiis ayaa la leeyahay. marka xogtan waxa heshay idaacadda CBS waxaana ay muujinaysaa in maxkamadaha immigrationka laga dhaadhicinayo. sidaan ognahay maxkamadaha immigrationku waaxda cadaaladda kama tirsana, waxa ay hoos tagaan wasaaradda cadaaladda ayay hoos tagaan, waxaana ay hoos tagaan sidoo kale wasiirka cadaaladda. sidaa darteed dowladda ayaa mushaar siisa garsoorayaasha maxkamadaha immigrationka. marka amarkii la siiyo waa ay qaadan karaan maadaama dowladdu ay lacagta siiso. kuwa fara badan oo kasoo horjeestay waa la fire gareeyay, shaqada ayaa laga ceeriyay. kuwa kalena iyaga ayaaba isaga tago, waxay yiraahdeen qof magangalyo soo dalbaday inagu ma doonayna inaan magangalyadii u diidno. marka garsoorihii aan amarka dowladda aan qaadanaynin oo wixii lagu amro aan sida ay tahay aan uga soo baxaynin, macnaheedu waxay tahay in Trump uu shaqada uu ka ceyrinayo. marka dadkan waxaa la leeyahay magangalyada dalbaday wadamadoodii waa ay ka soo carareen, qaarkood waxay uga soo carareen prosecution in dacwada lagu soo oogayo ama la xiriirto isirkooda, midabkooda iyo diintooda ama arrimo siyaasadeed. marka waxaa la leeyahay dadkaasi wadankoodii waa ka soo carareen Soomaa. maamulka Trump marka waxa uu heshiis la galay wadamo dhowr ah uu ka dhaadhiciyay inay aqbalaan dadka aan wadankooda u dhalan in loo soo masaafuriyo. marka inta badan hadda kiisaska magangalyo doonka ee la kansalayo, meelaha laga kansalayo waxaa ka mid ah magaalooyinka ay ka midka yihiin Atlanta oo gobolka Georgia, New York, Miami oo Florida, Los Angeles oo California, San Francisco oo California, gobolka Texas. dhammaanba meelahaasi kala duwan ayaa kiisaskaasi magangalyo doonka ah dadka ay u xareysan yihiin oo weli go'aan aan laga gaarin. waxaa ICE ay ka codsanaysaa garsoorayaasha maxkamadaha inay gebi ahaanba diidaan kiisaskaasi, isla markaana ay ogolaadaan dadkaasi in loo masaafuriyo wadan saddexaad oo aan ahayn wadankii ay markii horeba ay ka yimaadeen oo asal ahaan ay u dhasheen. marka qareennada ama looyarada ICE ayaa maxkamadaha immigrationka ka dhaadhicinaya in ay sidaasi sameeyaan. weliba dadkaas iyadoo aan loo ogolaanin ayaa la leeyahay in kiiskooda magangalyo doonka heerinkoodii ugu horeeyay xitaa la dhageysto
iyadoo aan loo ogolaanin ayaa la doonayaa in gabi ahaanba dadkaasi la diida kiisaskooda. xitaa waxaa la leeyahay wax racfaan ah kama qaadan karaan. haddii la diido isla markiiba deportation proceeding ayaa la gelinayaa, waxaana loo masaafurinayaa maadaama ay leeyihiin waddankeeni waan ka soo cararno kuma laaban karno. wadamadan aan idiin sheegi doono mid ka mid ah oo maamulka Trump ka ogolaaday inay aqbalaan dadka aan u dhalan waddankooda in loo soo masaafuriyo ayaa la geynaya. marka maxay yihiin marka wadamadaasi? wadamada ogolaaday waxaa ka mid ah ilaa iyo hadda waxay gaarayaan 4 wadan, waana Guatemala, Honduras, Ecuador iyo Uganda. marka haddii aad Soomaali tahay oo kiiskaada la diido oo Soomaaliyan ay ku diido in lagu soo celiyo waddankaada, Uganda ayaa lagu geynaya. markaas kadib adigu ama Soomaaliya aad ama meel kale aad, adiga ay ku taala. marka sidaasi ay hadda dowladdu ay doonaysaa. wasaaradda amniga gudaha waxa ay sheegtay in maamulka Trump uu ka shaqeynayo wax kasta oo suuragal ah oo dadka sharci darrada sida ugu dhaqsiyaha badan looga saarayo Mareykanka. waxa maamulka Trump uu leeyahay dadkan arrimo dhaqaale ayay Mareykanka u soo aadeen, xadka dhinaca Mexico uu la wadaago Mareykanka ayayna ka soo galeen xilligii Biden uu waddanka madaxweyne uu ka ahaa. sidoo kale wasaaradda amniga guduhu waxa ay sheegtay in wax kasta oo awoodeeda ah ay isticmaalayso oo suuragal ah si loo yareeyo kiisaska magangelya doonka ah ee isgaaray, iyo weliba in systemka asylumka ee magangelya doonka oo sida qaldan loo adeegsanaya gebi ahaanba wadada saxda ah lagu soo celiyo. waatii 2 maalin ka hor wasiirka amniga gudaha sheegtay in inta ka dhiman bishan qofkii iskii isku masaafuriya lacag $3,000 ah la siinayo, isla markaana mustaqbalka uu si sharci ah waddanka ugu soo laaban karo. laakiin qofkii aan qabanno oo aan masaafurino waxay tiri waddanka si sharci ah xitaa marnaba dib uguma soo laaban karo. marka hadda tallaabadaasi ayaa maamulka Trump uu doonayaa in dadkii magangelyada kiisaska magangelya doonka ay u xareysnaayeenba iyadoo kiiskoodii aan la dhageysan garsooraha maxkamadda uu diido, markaasi kadibna removal proceeding la geliyo, isla markaasina qofka loo masaafuriyba waddan aan ahayn waddankii uu ka yimid oo uu u dhashay waddan aan ahayn in la geeyo sida wadamada aan hadda idiin sheegay. dhinaca kale ciidamada ICE oo hadda ku dhawaad muddo bil ah ilaa iyo 1 bishan howlgal ka wada magaalooyinka mataanaha St. Paul iyo Minneapolis ayaa lagu arkay arrin sharci darro ah oo ay sameynayaan. ciidamada ICE waxaan ognahay waxa ay wataan gawaari ranti ah oo ay soo kireysteen. marka gawaarida rantiga inta badan waxaa ku dhegan taargo ama number plate gobollo kala duwan ah. marka inta badan waa lagu aqoonsadaa gawaarida ay wataan waa gawaari SUV ah oo gawaari waaweyn, isla markaana waxa ay wataan number plate ama taargo gobolka ay howlgalka ay ka sameynayaan gobollo aan ahayn. marka waxaa lagu arkay hoteelka ay degan yihiin ciidamada ICE in ay isticmaalayaan taargo gobolka Minnesota. askarigan idiin muuqdo labada gacmood waxa uu ku wadaa taargo ama number plate oo gobolka Minnesota oo isku mid ah, 2 gaari oo kala duwan ayuuna ku dhajinayaa. arrintaasi waa sharci darro marka loo eego gobolka Minnesota. marka ninka madaxda ka ah waxda BMB-da oo taargooyinka bixisa ayaa waxa uu waraaq u diray wasiirka amniga gudaha Kristen Noem, waxaana uu yiri arrintan marka sharciga gobolka Minnesota loo eego waa sharci darro, isla markaana looma dul qaadan karo. xitaa Chicago markii ay ka wadeen howlgalada sidaasi oo kale ayay sameeyeen. xeeralyaha gobolkaasina waa uu ka dacooday oo waraaq cabasho ah ayuu ka gudbiyay. marka arrimahaasi sharci darrada ah iyagoo sameynaya ayaa la arkay. dhinaca kale waxaa jirta dadka Afgaaniyiinta ah in wasaaradda amniga gudaha ay waraaqa u dirtay maanta oo 25 bisha ah ilaa iyo 1 bisha January. waa maalmo holiday maxkamadihii federaalka waa xiran yihiin, qareenadoodii dadkan ma wici karaan. marka in la yiri check in sameeya bal soo report gareeya inaad joogtaan hal la idin arko. haddii qofka waraaqdaasi loo diro oo uu tagi waayo waa dambi kale. haddii aad tagtana meeshii ayaa lagugu sugayaa oo waa lagu qabanayaa oo waa lagu xirayaa. marka ilaa iyo holidayada Christmaska ee sanadka cusub laga soo laabtana macnaheedu waxay tahay waa lagu sii haynayaa. maxkamad ma jirto lagu geeyo, isla markaana ma jirto meel kale amaba qareenkaadina xitaa lama xiriiri kartido fasax ayuu ku maqan yahay, telefoonba kaama qabanaya haddii uu rabo. marka taagtikadaasi cusub ayaa hadda wasaaradda amniga gudaha ay sidoo kale isticmaalaysaa. wasiirka amniga gudaha Kristen Noem ayaa sidoo kale hadda waxaa lagu haystaa xayeysiino ay sameynaysay ilaa iyo intii xilka ay la wareegtay. lacag 220 milyan ah ayay xayeysiino ku bixisay. xayeysiinadaasi waxaa la leeyahay xitaa waa ay diiday wasaaradda amniga gudaha in ay xayeysiiso kontraktiyada dadka la siinayo. dad gaar ah ayaa la siiyey. shirkad cusub oo hadda la furto Delaware LLC la yiraahdo, iyo weliba haweeneyda afayeenka ka ah wasaaradda amniga gudaha oo Tricia McLovin la yiraahdo, ninkeeda company uu leeyahay ayaa la siiyey kontraktiyada qaarkood.
marka haweeneydan oo wasiirka amniga gudaha Kristen Noem inta badan waxay jeceshahay show off wax la yiraahdo inay samayso in koobi cowboy ay soo gasho fastiga ciidamada ICE oo xabadda celiya ay soo gashato isla markaana xayeysiino kala duwan ay sameynayso marka hadda waxa la leeyahay lacagihii canshuur bixiyaasha ayaa si qaldan ay u isticmaashay dawladdu marka ay contract bixinayso waa inay xayeysiisaa oo loo tartamaa isla markaana in kambanigii ku guuleysta la siiyaa laakiin dad iyaga u gaar ah ayay siiyeen ayaa la leeyahay kontraktiyadan oo lacag 220 milyan ayaa hadda sidaasi ku maqan oo hadda arrintan fadeexad cusub oo hadda soo baxday ayay u muuqanaysaa dhinaca kale hadda waxa la leeyahay dadkii maamulka Trump waa kii yiri dadka green card ka codsanaya interview ayaan ugu wici doonaa hadda waxa la leeyahay goobihii interviewada meel la isku gaada ayay noqotay qofkii markuu yimaado interview loo ballamiyo waa la qabanaya waa la jeebaynaya haddii ay qoysas yihiin iyo haddii hal qof ay yihiinba waa la xiraya arrintaasina dadka qaxootiga ku yimida sidoo kale waxaa jira dad iyagu wadanka mar hore soo galay ama xitaa dadka sharci darrada ku soo galay ahaada oo green card gaaray amaba qof muwaadin Mareykan intuu guursaday green cardkii uu doonayay inuu intuu dalbaday interview u tago in hadda goobihii interviewada la isku gaadayo ICE ay joogaan oo qofkii markii uu yimaadaba la xirayo meel la isku gaado ay noqotay xafiisyadii immigrationka isla markaana dadkii sidaasi lagu xiro marka arrimahaasi ayaan rabay inaan idin socodsiiyo aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo